بالله من الشيطان الرجيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون درسيا وحوك بالله بنا يا آيات اللحظة إيا السقالات سورة الأنعام كمدة آيات يهوري إلهي سبحانه وتعالى وحنوصو الشيغي موقف kala rabo dadka muuminiinta ah inay ka qaataan hadii ay dhacdo majlis yaani diinta wax looga sheegayo ama lagu jeesjeesayo mowqifkaas inuu yahay mowqif ay inay qaadacaan ay tahay oo aysan ka yeelin in diintooda hortooda lagu ceebeeyo hadii ay iloobaan markay soo xusuustaan inay halkii ka bilaabaan oo ayna ogolaan marna yaani meel diintooda wax lagu yeelaynayo ilaa ay dadkaas wax sameynaya ay wax kala ka haldaana aan la sii fadhinin sidaas aan loo soo sheegay dadkaas muuminiinta ee mowqifka fiican ee diintooda ay ku difaacayaan mar walba diyaarka u ah iyo kuwa quraanka iyo diinta ku jeesjeesayay say u kala duwan yihiin iyo mid walba waxa yaani korkiisa saaran ee yaani asaga uu doortay si loo cadeeyo yaa muuminiinta mowqifkaas fiican ee diinta ay ku difaacayaan qaateen yaa ilaahay wuxuu leeyahay wama cala alladina kuwi korkooda ma ahaanin yattaquuna ilaahay ka cabsanayeen min xisaabihim kuwaas diinta ku jeesjeesaya xisaabintooda min shay wax ka saaran male malaa'ig ayaa u qoraysa kuwa diinta ku jeesjeesay ilaahay ayaa hadhow xisaabin doona muttaqiinta ayaga waxa laga rabaa markii ay arkaan mowqif yaani wax lagu yeelaynayo diinta inaysan u camirin kuwa diinta wax yeelaynaya ee ay muqaadiceeyaan oo ay ka celiyaan arrintaas iyada ah oo ay difaacaan diinta kuwa marka sidaas yeelay kuwaas xumaaday ee diinta laga kari laayahay dambiga ay ku jiraan ayaga loo qoraayaa muuminiinta korkooda dambigaas ma saarno wama cala alladina kuwi korkooda ma ahaanin yattaquuna ilaahay ka cabsanayeen min xisaabihim kuwaas xisaabtooda min shay'in waxba kama saarno yaani xisaabintooda ilaahay ayaa iskale in xisaabuhum illa ala rabbi xisaabuhum ala allah muttaqiintani nimankaas xisaabintooda ayaga lagama rabo oo kor kama saaro malaa'ig ayaa u qoraysa maxaa laga raba marka muuminiinta hadii aan xisaabtooda laga rabin ayaga maxaa saaran walaakin hasa yeeshee dhikra waana ayaa laga rabaa korkooda waxaa saaran muttaqiinta waano iyo aqal celin iyo wax u sheegid lacallahum waxay mudan yihiin kuwan quraanka ku jeesjeesay yattaquuna inay cabsadaan oo markay arkaan dad arrintaas ka soo horjeeda inay dhahaan war arrintan arrin soconaysa ma aha waa la diidan yahay aan iska dayno laakiin hadii dadkii oo dhan wada sacbiyaan wixiina wax diinta ka soo horjeedo oo xun uu yahay way ku sii dhiiranayaan inay yaani si xumaatadii ay sii wadaan laakiin inay mar walba jirto dad feejigan oo aan la siri karin oo wixii diinta khilaafsan hadii la isku dayo xataa si kala in loo geliyo ka celin kara oo dhigi kara ma taas diinta ma waafaqsan laga daayo sidaas loo baahan yahay marka waa mowqif aad u qiimo badan oo muuminiinta laga rabo oo ah inay mar walba u feejignaadaan diintooda hirgelinteeda ku dhaqankeeda ilaalinteeda cidii rabta inay wax yaani ka sheegto ama ku jeesjeeso ama ku kufrisana inay ka celiyaan oo dhahan diintani yaani diin wax laga sheegi kara ma aha diinteena loo badbaadiyo diinteena loo daayo muuminiinta marka mowqifkaas ayaga saaran ama dadka saas yeelaya ciqaabtooda iyo xisaabintooda muuminiinta korka kama saaree wa xisaabuhum ala allah ilaahay baa xisaabinaya marka waa in mawaqifta ay kala cadaato inaga muuminiin hadaan nahay maxaa inala gudboon hadii ay dhacdo mowqif yaani diinteena wax looga sheegayo ama lagu kufrinayo ama lagu jeesjeesayo inaan mowqifkaasna muqaadacayno isla markaasna aan diidno oo kuwa arrintaasi wadaay aan gaarsiino arrinkaas inuusan soconaynin taas ayaa korkeena ah ayagana markii saas ay arkaan inay ka joogaan oo dhahan dadkaani waa dad diintooda ilaashanaaye dad diintooda wax la yeeli kara ma ahane sidii kale aan hadana wax u samaysan karno marka inay iska dhaafaan oo ay halkaas diintu ku badbaado ayaa laga yaabaa marka waa inay sidaas noqoto ee ay muuminiintu ayna noqonin dad qaafiliin ah oo yaani wixii baadil ah u sacbiya waa inaysan noqonin marka ilaahay wuxuu leeyahay wama cala alladina kuwii korkooda ma ahanin yattaquuna ilaahay ka cabsanayeen
من حسابهم كواس حساب توضا من شيء وحبا كما سارو ولكن هسا يشاء الذكرى أي عليهم كوركوضا وحاسار أو لغرب الذكرى حسوس يوانين عقل علم كواس دينتا وحكي الشيقايا إنay xusuusiyaan ayaa korkooda lacallahum waxay mudan yihiin kuwan diinta inay wax ka sheegaan rabaan markay arkaan mu'miniintu arintaas aan ogolayn kuwaasi waxay mudan yihiin yattaquuna inay cabsadaan marka waxa jira mawaaqif badan mabaadi badan oo inaga iyo inoo dhaxay dadkan reer galbeedka iyo gaalada ayaan shaqo isku lahayn oo ku kala duwanahay hadii ay arkaan dadku inay u nugul yihiin way ku marsiinayaan laakiin markay arkaan dadku inay soo jeedaan oo mabaadiida islaamka dadku ay ku dhagan yihiin yaani waa dad dantooda yaqaanay si aan loo kala boodin oo ilaa hadii la kala boodo ayaga u daran tahay ayaga waxa dan ugu jirtaa in tartiib loo joogo oo waxay rabaan ay ka samaystaan marka haday arkaan dadkii oo soo jeedo oo wixii aan la marsiin karin gadaal ay u istaagayaan haday arkaan dadkii oo wacyi aan lahayn oo la iska mari karana intaas iyo in ka badan waa ay soo wadaan marka waa in mar walba la ogaado inay jiraan dad يعني دينتي إنا إلاليان دياروا مستوى يجراد يوعي فهمنا وإنا إليهم لكن قف أن كلا جرين إن الله صعده ماشان وحجر أيال يسوهس جليا وحاس يردد فهم أيال ربا إنا أجوجان وهالكذا كجوجي إلى هذا ما يتاس دينتي أنا ما وافق سنة ساس ميلينو كجوجا وحي كلا الدون كان معاملات كيسا كمدة يهرب مر يتقال سين لو كبعياء يسين وحوجها وهذا النائيو سين تجار إسوده ومرسلنا أيو وحاس دكده سين استعمالنا أيو عنشور محنك قاضي نائي يعني وحي معاملات يو كسابسن عالم كان يعني تجاري سي وحي كسابسن ومدول باي وحي أيضا اختصاص كذا انتي سميسته وحي دنت وجرت أيضا أي فيرسان يسو هلو تعامله لكن دينتي يمبادئ دي آيات القرآن كا هديك هو كجز جيساي أما كفرنا أي مجلس يكون مؤمنين أي كل مان مؤمنين تويني في جنادان أو أي كعليان أو حسوسيان أو يدهن دينتين واسداس إذن كان سيخال أفهمي دليل مال الدينتو موضوعي داس أذنكو أمال إنسان دينتي إنه يكون دليلان تاينا إذن كان سيخال أفهمي موجي هديس عقل ومنطقة اللي إذن فهم سياي واسدي أغفع عناد محايا لإلهي دادك أساق أيها أبوري دمتو دان أساق أيها يقان عد كتقان مجرتو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مركو حاربا إن الله كلا نحبحو شرعي إلهي دينت إلهي مبادئ إسلامك إيا مؤمنين ترميسن مبادئ داسي أن لا يقشقشين وإسليهن اللي اسكو آديو لكن الدين لك لقويو يعني إيمانك اللي شيئنا أيام meesha ka baxaya marka muuminiintu waa inay mar walba ay diintooda ay ilaashadaan waay marka kuwa oo diintooda raba inay ama wax ka bedelaan ama wax ku soo daraan ama ay ku jeesjeesaan markay arkaan muuminiinta oo arintaas diidani lacallahum waxay mudan yattaquuna inay dhowrsadaan oo ay dhahan sidaas marka umaan wadin waan ka noqonay saasay tahay waa kada marka diinta qof walba waajib ayaa ka saaran waa inuu meeshiisa uu ka ilaaliyo kii ganacsi ku jira iyo kii ku jira maxay tacliin ku jira iyo kii siyaasad ku jira iyo dhammaan waxa dadka muuminiinta waxa rabaa qof walba waxa uu aaminsan yahay uu ku ictizaaza oo uu ilaashadaay in aan diinteena ilaashano oo marna ayna suurtagal noqonin in diinteena yaani ama laga bixiyo ama wax laga sheego waa in diintaasi sidaas Ilaahay u soo dejiyay ee nabiga loogu soo waxyooday ee nadiifta ee saafiga ah waa in sidaas lagu haayo qolo walba marka ay joogto amaanadaas ayaa kor ka saaran waa inay ilaaliso way macna وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا على وذر كتك الذين كو اتخذوا كدغتي دينهم دينتودا لعبا عيار iyo ولهوا مشغول كدغتي oo waqarratum alhayatu ad-dunya ay kadisay yani ilaahay uu yaqaan dadka qaar waxa jira yani ayagu waxbay diin ayay leeyihiin waxbay rumaysan yihiin baadil bahaw ahaatee diintooda marka yani meel weyn kama sii jirto oo yani ayaga waxa suurtagal ba inay dhahaan war aniga batan aaminsanahay hadaan rabo waan iska dhaafi karaaye adigu ta aaminsantahay islaamka ma iska dhaafi kartaa oo ruuxi caadiga ah marka oo aan aad mustawa u lahayn oo malayo war ninka hadoo asaga tiisi iska dhaafaayo adna taada ma iska dhaaftido wixii kale wada qabsan kartaan ma wada qabsataan marka si ayna saas kuugu dhicin ninkani diintiisa asaga wax weyn uguma fadhido maxaa yeelay waa wax ayagu ay inxiraafiyeen oo ay qalloociyeen oo xaq aan ahayn oo ayagu ay samaysteen marka hadii lagu jeesjeeso iyo hadii la iska daayiyo ayaga agtooda waxba kama ah waliba inaga muslimiin hadaan nahay marna ma dhacdo inaan diin ilaahay uu soo dejiyo oo samaawi ah inkastoo diimaha hadda ay qalloociyeen oo yahuuda iyo nasaaradu ay tahay haddana saas ay tahay maadaama asalkeedii hore kitaab ilaahay uu soo dejiyay ka soo jeedo haba qalloociyeene marna ma dhaxayso inaan ka diin ahaan wax uga sheegno rusushi ilaahay uu soo dirayna ayagu ha raacsanaadeen raacsanidooda inagama xigaan marna ma dhaxayso inaan rasuul ilaahay uu soo diray aan wax ka sheegno laakiin ayagu kitaabkeena quraanka wax ka sheegayaan rasuulkeena wax ka sheegayaan yaani ay wax diin ah oo celinaya ma jirto laakiin inaga mabaadi iyo diin ayaa inay celinaysa diinteenana ma ogolaanin in wax laga sheego kutubtii hore iyo rusushii hore ilaahay uu soo
diray ama kutubtii uu soo dejiyeyna in ayagana wax laga sheego ma yeelin saasan cadaalad ku nahay marka ruuxan asaga diin ba in waxba ugu fadhinin tuu rabo wax ka sheegaya kaasi diin ma hayste u daa ilaahay yaa ciqaabi doon ninkaas adduunyo ayaa la weyn adduunyo ayadaaban qiimo lahayn faraha isaga qaadare waa la ciqaabi doonaa waxa wadari alladina ittakhaduu wadari ka tag alladina kuwii ittakhaduu ka dhigtay diinahum diintooda laciban ciyaar iyo walahwan wax lagu madadaasho iska mashquul diintooda ka dhigtay wax weyn aysan ugu fadhinin oo waqarratum alxayaatu dunya noloshan adduunyo ay kadisay ayaga waxa muhiim u ah halkee adduunyo laga helaa lacag xagee laga hela ayaa muhiim u ah diintu muhiim uma ah innagana waxaa muhiim inoo ah adduunyo dhan yaa la helin haddii la rabo diinta inay inoo badbaadaa muhiim inoo ah ra'sumaalka ugu muhiimsanan haysana waa diinta ina allaha asdafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay diin ayuu idin dooray yacni diinta qaadashadeeda waa fadli ilaahay ruuxu raba uu siiya dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa ruuxa ay ka maqan tahayna wax badan ayaa ka maqan wuu dhunsan yahay waxba ma oga kaasi adduunyaa la weyn marka kuwa adduunyada ay la weynaatay ee ra'sumaalkooda adduunyo uu yahay kuwaasi ilaahay baa ka jaazinaya waxa ay samaynayaane isaga tag yayna adiga ku dhuminin diintaada yaysan kaa bixinin ku adkaysa diintaada wadari alladina ittakhaduu diinahum wadari ka tag alladina kuwa ittakhaduu ka dhigtay diinahum diintooda laciban ciyaar iyo walahwan oo waqarratum alxayaatu dunyaa ay kadisay noloshan adduunyo wadakir waani ama xusuusi bihi bilqur'aani kuwaas diintooda ciyaarta ka dhigtay ee ayna wax weyn ugu fadhinin ee mabaadi weyn aysan haysanin ee hadday rabaan isaga tagaayaan oo raba inay muslimiintana saas oo kala ka dhigaan oo dad diintooda aysan wax weyn ugu fadhinin oo markay rabaan ay ka kaxeeyaan markay rabaan ay ku soo celiyaan sidaa rabaan kuwaasi waxaad u sheegtaa arrinkaas inuusan sax ahayn inuusan soconaynin wadakir waani bihi qur'aanka ku wacdi waxaad tidhahdaa idinka haddii diintiina ay ciyaar la tahay oo wax idinku ay baadiriation idin qoreen ama ay qalloociyeen oo sidii haddii raba iska dhaafi kara agtiina ay ka tahay oo diin la-aan aad rabtaan inaad ku socotaan sida مثلا nimanka calmaaniyiinta la yidhaahdo ayaga agtooda diin waxba kama aha waxay ku leeyihin diimuhu waa wax calaaqad ilaahiya ka dhexeeya qofka ha loo daayo meelaha loogu talagalay oo masaajidka iyo kaniisadda iyo halka ayayna soo dhaafin ama adduunyada iyo ganacsiga iyo siyaasadda iyo dawladdana taas dadku ayagu ha samaysteen oo kaanaha diintu inay shay tahay noloshuna inay wax kale ay tahay diinteenu sidaas ma qabto diinteenu waxay leedahay masaajidka marka la joogo iyo markii suuqa la joogo iyo markii baarlamaanka la joogo iyo markii jaamacadda la joogo mar walba ahlu diin in la hadal raba ittaqillaha haythu ma kunta meel kastoo joogto ilaahay uga cabso ee meel diinta intii la soo dhigto hadhowna dib loogu noqono masaajid markii la joogana ilaahay laga cabsan masaajidka markii laga soo baxo meel kale la tagana diintii faraha laga qaadi inaga agteena saas ma ah marka kuwan saas uu waaniyo wadakir ku waani bihi bil qur'aani u sheeg inuu xaqiiqo yahay koonkan in loogu talagalay in lagu maamulo ilaa qiyaam saaca asaga inuu jiraayo ku waani wadakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat an tubsala ay makhafata an tubsala cabsi laga qabo in la dhiibo nafsun naf bima kasabat waxay kasbatay yani kuwan waxaad ku waanisaa oo diinta ku jeesjeesaya waxaad ku tiraahdaa haddaad maanta saa ku wadaan maanta adduunyaa la jooga waa iska dhammaan doontaa maalinta qiyaamaha ah yaa naarta la idiin dhiibi doonaa oo malaa'igta naarta ka shaqaysa waxaa leeyahay kuwan ma ujeedaan waa kuwa diintii ka baxay diintii ku jeesjeesay sidaasay ahaayeen ciqaab adag marsiiya marka kuwan intayna taas qabsanin ka hor ha loo digo leanna wadiifada rasuulka waxay tahay loo soo diray in uu yani dadka u digo mubashiriina wa mundiriin marka waxaa la wadakir bihi an tubsala nafsun ay makhaafata an tubsala cabsi laga qabo in la dhiibo nafsun naf bimaa kasabad waxay kasbatay in naftaasi loo dhiibo yani oo hadhow halaag loo dhiibo leeyahay tani naf soo dambaabtay ayay ahaataye waa la soo wareejiyey xabsigii naarta ahaa ee kuleylka badnaa ha la geliyo marka intayna taas qabsanin ka hor maanta fursad la haystaaye qur'aanka dadka ha lagu wacdiyo an tubsala nafsun naf intaan la dhiibin ka hor cabsi arrintaas laga qabo yaysan arrinkaas dhicine ha la waaniyo naftaasna waxa loo dhiibaya ay tahay in laga gardaran yahay ma ahe waa bimaa kasabad ayadu waxay shaqaysatay yani qof walba wuxuu kasbado ayaa lagu xisaabinaya kullu nafsin bimaa kasabad rahiina naf walba waxa ay kasbatay ayay u rahman tahay oo xayiran tahay ama u xabisan tahay marka intayna taas dhicin ka hor qur'aanka ku waani laysa laha uma sugnaanin naftaasi la dhiibay oo naarta loo sallimay min duuni illahi ilaahay sokadiisa waliyun xiriiriye ama gargaare walaa shafiicun ergena uma sugnaanin ruuxu u ergeynaayo oo akhyaaraynayna ma jiro naftaas mar haddii la sallimo oo la yidhahdo dembigay soo gashay sababtiisa naar ugu waajibteen naarta ha loo diro khuduuhu qabta fagulluuhu xerxera markii la yidhaahdo dhab ayay malaa'igtu siinaayaan markii la dhiibo oo naartii loo sii wado ruux ka dabategi kara oo u ergeyn kara ma jiro laysa laha uma sugnaanin min duuni illahi ilaahay sokadiisa weliyun gargaare ama xiriiriye walaa shafiicun ergeeye uma sugnaanin
وإن تعدل هدي ديبتو هدي اسم مدح فرطو نفتاس لديبي كل عدل مدح فرشو رمان هدي أي ديبتو أما أي بحسو لا يؤخذ لغا قادي ما يمنها أيضا نفتان لسلمي النار تلو ديري haddii adduunka muggi oo dahaba ay la imaato rabto inay isku furato lagama yeelaayo wa in ta'dil haday ismadax furato naftaasi kull adlin madax furasho kulligeed haday isku madax furato la yuukhad laga qaadi maayo minha xaqeeda laga qaadi maayo ulaa'ika kuwa sidaas ay ku dhacday alladina kuwi ayay ahaadeen ubsilu la sallimay ama la dhiibay bima kasabu waxay kasbadeen sababtiisana loo wareejiyay kuwaasi waxay ahaadeen kuwa xugun ilaahay oo ku dhacay oo naari ay u soo baxday mar haddii saas loo dhiibo lacag aan dhiibayaa waan ismadax furanayaa ee haliga daayo xukunkaas ilaahay ma dhacayso ulaa'ika kuwaasi alladina kuwi ayay ahaadeen ubsilu la dhiibay bima kasabu wixii ay kasbadeen sababtiisa ayaa cadaab iyo halaag loogu dhiibay macnaheedu kuwaasi way rafaadeen way macnaha way gacan galeen way macnaha kuwaasi mar haddii malaa'igtii lagu wareejiyo oo naartii loo diray cid ka daba tegaysa male cid u ergeynaysa male kuwaas ayaga ah waa kuwa la dhiibay way gacan galeen kuwaas ulaa'ika kuwaasi alladina kuwi ayay ahaadeen ubsilu la dhiibay ama la salamay bima kasab waxay kasbeen sababtiisa lahum waxay leeyihiin sharaabun cabitaan ayay leeyihiin oo min xamiimin biyo kulul ah markii naartii la geliyo yacni biyaha la siinaayo waa biyo aad u kulul waxaa leeyihin markay biyo u baahdaan oo ay dhahaan biyahana la siiyo waxaa loo keenaya wa in yastakiifuu yuqaafuu waxaa loogu soo gargaaraya bimaa'in biyo kalmuhli laami la karkariye ama maar la dhalaaliye oo kalea oo yashwi lwujuuha yani wuxuu fiiqayaa wejiga yani intaan biyihiiba la cabin kulaylka iyo hanfiga ka soo baxaya ishordhiga ay ishordhigeen wejigooda hortiisa ayaa wixii maqaara oo wejiga saara oo dhan ayaa soo dhacay kulaylka daraadii biyaha saa u kul ayay cabaayaan wasuquu ma'an xamiiman biyo kulul ayaa la cabsiiyey faqad dhaca amcaahum uurku jirtoodii ayuu banaanka soo dhigay marka wixii banaanka markuu ka yimid oo dheecaankii iyo wixii soo gubtay caloosha biyo kale mehe kaas ayay dib haddana u cabaayaan markaas waxaa la siinayaa biyaha saas u wasaqaysan biyo oo aad oo min ma'in sadiid oo wasakh ah marka lahum waxay leeyihiin sharaabun sharaab ayay leeyihiin min xamiim oo biyo kulul ah iyo wacadaabun aliimun iyo cadaab xanuun badan bima kaanuu yakfuruun kufrintii ay kufriyeen sababteeda qul waxaa tidhahdaa nabiyow anadcu ma waxaan caabudaynaa annagu mu'miniin haddaan nahay min duuni illaahi ilaahay sokadiisa ma waxaan caabudaynaa maa laa yanfacunaa waxaan waxba noo tarin haddaan caabudno walaa yadurunaa aanna dhibaynin haddaan iska daynay cibaadadiisa asnaamtan aad caabudaysaani haddii la caabudana nacfi ka imaan maayo haddii la caabudi waayo lagu caasiyana ciqaab kama imaanayso maxaad ii caabudi weysay awood ay dadku ciqaabaan male waa dhagax meel la dhigay ama geed meel la dhigay ama xidig meel iskaga taala yacni ilaahay keyrka oo la caabudo yacni wax yacni faa'iido oo laga gaarin ma jirto haddii la caabudi waayona wax ciqaaba oo uu ku marsiin ma jirto laakiin ilaahay haddii la caabudo ciddii caabudo ilaahay thawaab janno la yidhahdo ayuu siinayaa ruuxii caabudi waayana naar kulayl badan oo ti haddaan tilmaamaynay ayaa la gelinayaa ilaahaas ayaa mudan marka in la caabudo xaggeed noo wadaan waayo macnaha qul waxaad ku tidhahdaa anadcu ma waxaan caabudaynaa min duuni illahi ilaahay sokadiisa maa laa yanfacunaa wax aan na anfacayna haddaan caabudno walaa yadurunaa aanna dhibayna haddaan ka tagno wa nuraddu manala celin calaa acqaabina meeshii aan ka nimid cerabteena miyaa dibna loogu celin bacda id hadaana allahu ilaahay markuuna hanuuniyey kadib annaga mu'miniin markaan noqonay kadib macasluljaahiliga ayaa dibna loogu celin yacni waa qofka mu'minka ah iimaanka macaankiisa ma dhadhamiyo ilaa yacni uu ilaahayna jeclaado rasuulkiisana jeclaado oo uu naco in dib loogu celiyo jaahilnimo iyo gaalnimo dib loogu celiyo sida uu nacaayo naar in lagu tuuro oo kale marka waxaad ku tidhahdaa annagu ilaahay baan caabudaynaa oo mu'miniin muwaxidiin ayaan noqonaye ma dib waxaad rabtaa inaad noogu celisaan meesha casluljaahiliga ahayd wanuraddu miyaana la celin calaa acqaabina cerabteena miyaana lagu celin bacda id hadaana allahu ilaahay markuuna hanuuniyey kadib kaladii istahwadu shayaaiinu fi lard kaladii ay fa nakuunu markaas aan noqonayno markii saas naloo celiyo mathalkeenu uu noqonayo kaladii kii oo kale markaas aan noqonayno istahwadhu shayaaiinu shayaadiintu ay dafeen fil ardi dhulka dhexdiisa xayraana isaga oo wareersan lahu isagoo leh asxaabun asxaab yadcuunahu u yeeraayaan ila alhudaa hanuunka ugu yeeraayaan oo i'tinaana leh qul waxaa tidhahdaa ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisa huwa asaga ayaa alhudaa hanuuna wa umirnaa waana la amray linuslima inaan hogaansano lirabbi alcaalamiina ayaana saas ugu sheeg mathalkan kaladii istahwadu shayaadiinu yani waxaa nabiga sal lla alay slam waxaad ku tidhahdaa layidhi annaga ilahay baysaan caabudaynaa asnaamtiina shaqo kuma lihin maxaa yeele waxna nooma taraayaan haddaan caabudno waxbana nagama dhibay haddaan diidno dib ina loogu celiyana ma rabno oo hadda inaan gaalnimo iyo casruljaahili dib loogu laabtana ma rabno nuraddu calaa aqaabina ma yeelayno bacdeed hadaana allahu
haddii marka aan warkiina yeelno oo aan dib u laabano maba u laabanayna sida aan noqonayna mithaalka aan noqonayna in fahamsiinayna dhageysta mithaalkaasi mid lagu noqon kara marka ma aha mithalkiisu wuxuu noqonayaa ruuxa ilaahay qeyrka caabudaya sidii ruux intii la dafay meel bahgooya ah ama lama dabagaana ama saxara lagu riday markii lagu riday wuu wareeray marka meel waxa uga dhawaaqaya dad le annaga noo imo marka haddii uu noo imadaasi uu yeelo oo meel marka biyo leh oo la geeyo wuu badbaadayaa hadduu wareerkiisa sii watana wuu halaagsamayaa marka kuwa oo maalan gaalnimada doortay waxay la mid yihiin qof saxaro ku dhumay oo aan dantiisa garanaynin oo haddii loo yeero kaalay la yidhahdo aan imaanaynin hadduu imaan lahaa oo islaamka uu soo geli lahaa wuu badbaadi lahaa marka halaag ayaad noo wadaane halaagaas annaga ma yeelayna saas ugu dheh marka kaladii kii oo kale miyaa noqonaynaa marka istahwadu shayaadiintu ay dafeen ama ay duufsadeen fil ardi dhulka dhexdiisa xayraana ay mutaxayiran asaga oo wareersan marka meel fog intii lagu riday ayuu wareeray lahu wuxuu leeyahay asxaabun asxaab ayuu leeyahay yadcuunahu u yeeraayaan asxaab oo yadcuunahu ugu yeeraayaan ila alhuda hanuunka ayay ugu yeeraayaan hanuunkaasay ugu yeeraayaan oo maxay leeyihiin itinaa noo imo war kaalay war ha halaagsamin war meesha isaga soo noqo yani qofka mu'minka ah inuu qof badbaadiyo ayuu rabaa kana kula badbaadin kara mee duurku raba inuu sii galo marka sidaas oo kale inaan duur noogu ridaan oo aan halaagsano miyaad rabtaan ma yeelayn annaga waddadii saxda ayaan helnay meel qabow oo islaam la yidhaahdo oo fiican ayaan haysanaa adduun iyo aakhir asaan ku liibaanaynaa marka qul waxaa tidhahdaa ina huda allahi ilaahay hanuunkiisa oo islaamnimada ah huwa alhuda asaga ayaa hanuun ah wa umirnaa annaga waxaana la amray haddaan muslimiin nahay linuslima inaan u hoggaansanno lirabbi alcaalamiina makhluuqaadka rabbigooda inaan u hoggaansanno ayaa nala faray ciddii sidaas soo yeeshana way badbaadaysaa ciddii sidaas diidana ayada ayaa halaagsamaysa wa an aqiimu salaa ay wa umirnaa waxaa kaloo nala amray wa an aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wattaquuhu ilaahay ka cabsada waxaana la amray inaan muslimiin dhab an noqono oo ilahay aan u hoggaansanno wa an aqiimuu ooga asalaata salaada ooga waa waajib muslimiinta la saaray salaada waa cimaaduddiin wattaquuhu ilaahay ka cabsada wahuwa aladii ilayhi tuxsharuun wahuwa ilaahay alladii allihi ayuu ahaaday ilayhi ila allahi tuxsharuuna laydin celinay wahuwa asagu alladii allihi ayuu ahaaday ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin celinaayey marka annaga waxaa dhahdaa waxaana la faray inaan ilahay hogaansano inaan salaada oogno inaan asaga ka cabsano wahuwa alladii ilayhi tuxsharuun xagga ilahay ayaana laydin celin doonaa wahuwa alladii khalaqa asamaawaati waalardi wahuwa ilaahay alladii allihi ayuu ahaaday khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda iyo dhulka bilxaqi xaq ayuu ku abuuray samaawaadkuna xaq ayay u abuuran yihiin dhulkuna xaq ayuu abuuran yahay waxaana la rabaa dhulkaasi xaqaas u abuuran korkiisana in xaq lagu hayaa la rabaa baatilka in laga daayo xaquna wuxuu ku jiraa sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay iyo dadkaas ilaahay in la isu daayo oo aan la kala dhex gelin marka huwa ilaahay alladii allihi ayuu ahaaday khalaqa samaawaati samaawaadka abuuray iyo waalarda dhulka bilxaqi xaq ku abuuray wa yowma maalin yaquulu uu dhihi doono kun ahaw oo fa yakuunu uu ahaan doono marka halkii hore in lagu xiro ilaahay ka cabsada yani ilahay waa ilaahay samaawaadka iyo dhulka xaq ku abuuray wa yowma maalin maalintaasna ka dhowrsada oo ilaahay ka cabsada oo maalinkaasa idin sugaysa ogaada wa yowma maalin yaquulu ilaahay uu dhihi doono kun ahaw maalintaas uu ku dhihi doono oo fa yakuunu uu ahaanaayo qawluhu ilaahay hadalkiisu alxaqu waa dhab hadalka ilaahay hadduu kun yidhaahdo sidii uu kun u yidhi unbay ahaanaysaa qawluhu hadalkiisu alxaqu ayuu ahaaday walahu ilaahay wuxuu leeyahay almulku maamul ayuu leeyahay markuu maalintaasi qiyaamaha ah kun oo fa yakuunu ay dhacdo oo hadalkiisaas dhabta lagu dhawaaqo mulkiga iyo dadka maamulkooda ilaahay keli ayaa iskale dadka dhan oo meesha taagan ayaa ilahay wuxuu ku leeyahay liman ilmulku alyawma maanta yaa mulki iskale lilahi alwaaxid alqahaar ilaahay baa iskale cid kaloo mulki sheegan karta male marka walahu ilaahay almulku ayaa usugnaaday yowma maalin yunfaku la afuufi doono fi suuri suurka maalinta la afuufi doono mulki ilaahay baa iskale maalintaas qiyaamaha alamru lilah arrinka iyo maamulka iyo waxoo dhan ilahay baa iskale yowma maalin yunfaku la afuufi doono fi suuri caalimu lghaybi waxa maqan alla og ayuu ahaaday ilaahay iyo washahaadati waxa jooga ilaahay waxa maqanaya soo socdana wuu og yahay waxa hadda jooga iyo mar kasta wixii jooga ilaahay wuu og yahay caalimu lghaybi waxa maqan ilaahay oga ayuu ahaaday washahaadati waxa jooga wahuwa ilaahay alxakiimu alla xikmad badan alkhabiiru oo wax walba og ayuu ahaaday darsigeenu maanta intaasuu ku egyahay وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.